kadib markii ay waayeen mushaaraadkii ay xaq u lahaayeen waxay si suuq madooba hubkii ay gacanta ku hayeen uga gateen suuqyada kala duwan ee dalka. kuwan ka hadlayo waa askartii ilaalada ka ahayd madaxtooyada Galmudug oo mushaar la'aan xoogan ku dhacday kadib hubkoodii gatay. waxaana madaxweyne Axmed Qoorqoor uu amray in jeelka loo taxaabo ehelada askartaas oo ku noolaa deegaanada fog ee miyiga ah isla markaasna halkaas ay ku haysatay abaaro xoogan kuwaas oo abaarahaas la daala dhacayay. tiradii yareed ee riyaha ay haysteenna qaarkood abaaruhu ka baabiyeen, kuwii kalena awoodi waayay inay u iibsadaan raashin ay ku caawiyaan oo ay uga soo bixiyaan waqtiga jiidaalka ah. balse xabsiga ayaa loo taxaabay, halkaas ayayna kula kulmeen xaalad aad u daran oo ay ka mid tahay caafimaad darri iyadoo lagu jiro waqtiyo kulul oo bisha Ramadaan ah. xaaladan ayaa kasoo cusboonaatay madaxtooyada Galmudug iyo deegaanadii fogeed ee miyiga ahaa dadkii ku noolaa, iyadoo dhowaana askarta ilaalada ka ah madaxtooyada Galmudug ay sheegeen in xaalad mushaar la'aan ah ay haysato, qaarkoodna ficilo aan wanaagsaneyn ay ka muujiyeen deegaanka. horey waxaa sidoo kale loo kala diray askartii booliiska gaarka ah ee deegaanka u lahaa, iyadoo mushaar la'aan xoogan markii ay soo wajahday kadib la sheegay in wax dhaqaalaha loo hayn isla markaasna la fasaxay. waxaana hadda ay u muuqataa in mar kale la kala diri doono askartii ilaalada gaarka u ahayd madaxweynaha Galmudug haddii ay sii jirto mushaar la'aanta xoogan ee waqtigan ay wajahayaan.